kusoo dhawaada telefishinka xidig barnaamijka caawa waxaa idiin daadihinaysa anigoo ah Fatima Maxamed waxaan uga hadli doonaa waraysi aan waraysan doono Cabdi Ibrahim iyo Maxamed Aadan iskaashiga ay iskaashadeen hay'adda Cairo iyo maxaa la yiraahdaa A+ Academy garabkayga midig waxaa fadhiya Cabdi Ibrahim oo nooga warrami doona hay'adda Cairo maxaa la yiraahdaa waxyaabaha ay ummadda Soomaalida ay u qabato dhinacayga bidixdaana waxaa fadhiyo Maxamed Aadan oo isagana noo sheegi doono nooga warrami doonana Academy waxyaabaha uu u qabanayo ummadda Soomaalida ee ku nool magaaladan St. Cloud haddaba su'aasheeda ugu horeysa waxaan weydiinayaa maxaa la yiraahdaa Cabdi Ibrahim walaalo ku soo dhawow maxaa la yiraahdaa programka waxaadna maxaa la yiraahdaa nooga sheekaysaa Cairo maxay tahay walaal Fatima aad baad u mahadsan tahay magacayga haddii aan ku celiyo mar labaad waa Cabdi Ibrahim oo ka socda usulna ka ah hay'adda Cairo Minnesota hay'adda Cairo Minnesota waxay u taagan tahay waa luqad qalaad macnaheedu dheerna waxa weeye Center for African Immigrant and Refugee Organization hay'addan marka waxay matashaa dhammaan dadka soo galootiga ah gaar ahaan kuwooda ka yimid qaaradda Afrika dal walba ka imaadaan marka shaqadan qaban waxaa waaye waa hay'ad samafal ah waxaan u adeegnaa dadka degan magaalada St. Cloud gaar ahaan waxaan filaynaa inaan gobolka Minnesota dhan aan isku balaarino hadda waxaan qabanaa oo ka shaqeynaa waxbarashada carruurta dugsiyada hoose dhexe iyo dugsiyada sare annagoo markaas si gooni ah ula shaqeynayna waalidiinta Soomaaliyeed kana wacyigelinayna shaqada iyo sida ay uga qayb qaadan karaan waxbarashada carruurtooda Cabdi Ibrahim aad ayaad u mahadsan tahay sida maxaa la yiraahdaa nooga falanqaysay hay'adda Cairo waxa ay ummadda Soomaalida u qabato waxaan u gudbayaa maxaa la yiraahdaa dhinacayga bidixda oo fadhiya Maxamed Aadan caawa walaal waxaad noo sheegtaa Academy Plus waxa uu yahay ummadda Soomaalida u qaban doono Faaduma aad iyo aad ugu mahadsantahay caawa barnaamijkan ugu soo casuumtay A+ Academy waxaan qabanaa waxaan la shaqeynaa ciyaarta carruurta K-12 waxaana ka caawinaa sidii homeworkooda reading iyo writing iyo math specifically cunug kasta baahidiisa ayaan fiirinaa ka dambe waan kala shaqeynaa sidii uu waxbarasho heerkiisu soo gaari lahaa waa ku mahadsan tahay maxaa la yiraahdaa Maxamed Aadan sida maxaa la yiraahdaa nooga sharaxday Academy Plus waan kugu soo noqon doonaa hadda waxaan rabaa su'aal inaan weydiiyo Cabdi Ibrahim iyo Cairo walaal waxaad noo sheegtaa dadka Soomaaliyeed ee daawanaya inaad u sheegtaa maxaa idinku dhaliyay inaad maxaa la yiraahdaa wada shaqaysaan sidaan hore kuugu sheegay Fatima hay'adda Cairo waa hay'ad samafal waxaan awood u leenahay inaan helno deeqo lacag ah annagoo markaas marayna wadooyinka loogu talagalay waxaan marka rabnaa inaan la shaqeyno A+ Academy waa tutoring oo ganacsi ah marka annaga iyaga waxaan nahay isku hadaf annagana waxaan rabnaa in ardaydii wax loo qabto iyagiina ardaydii bay gacanta ku hayaan oo ay ka caawinayaan waxbarashadii hadafkeena waxaa waaye inaan aragno isbeddel ku yimid heerka waxbarashada carruurteena marka isbahaysigan ama wada shaqeynta naga wada dhexaysa labadeennaba dan baa noogu jirta gacmana wada jir bay wax ku qabtaan Cairo oo keligeed ah iyo A+ Academy oo keligeeda wax ka awood badan labadeena markaan isku tagno oo aan isku geyno maskaxdeena iyo maalkeena aad ayaad u mahadsan tahay Cabdi Ibrahim su'aal lamid ayaan waxaa weydiinayaa Maxamed Aadan walaal maxaa adigana kugu kalifay inaad la shaqayso Cairo walaal Faaduma waa mahadsan tahay arrintaas haddaan faahfaahin weynkaas siiyo wada shaqeynta aan la shaqeyn Cairo Minnesota waxay ku timaaday waalidiin badan oo waxaan aragnay oo caawitaan u baahan carruurtooda oo inkamkooda aad iyo aad ugu yar yahay Cairona waxaan kala kaabsanaynaa ay naga caawin doonaan sidii familiyaashaas ay scholarship u helayeen sida oo ogtahay every family oo sameeyo 35 kun ka hoose waxay sameeyo inay u qalmaan carruurtooda scholarship ay ku geystaan after school touring program waalidiinta Soomaaliyeedna kama warqabaan marka arrintaasna waxaan naga caawin doonaa scholarship yaashaas waalidiintu keen doono Cairo Minnesota Maxamed Aadan walaal saad ogtahay magaalada waxaa ka jira after school programme tira badan ayaa ka jira oo carruurta kulligood dhaha waan ka wada caawinaynaa maxaa la homework reading iyo writing A+ muxuu uga duwan yahay kuwa kale tutoringka kale hadda jira Faaduma horta su'aal aad iyo aad u wanaagsan waaye arrin oo in laga hadlo u baahan waaye A+ Academy maxaa uga duwan dadka kale A+ Academy waxaan sameynaa marka koowaad cunuga imtixaan ka qaadnaa readingkiisa writingkiisa xisaabtiisa meesha joogta oo kale sida waqti waxbarasho sideedaba cunuga hadduu aqaan waxbarashadiisa readingkiisa hadduu galaaskiisa la socdo xisaabtiisa iyo qoraalkiisa hadduu fiican yahay homeworkiisa heer wuxuu gaaraa uu kaligiis u qabsado marka A+ Academy marka imtixaan ka qaadno carruurta
waxaa ogaanaynaa cunug kasta meeshuu joogo iyo cunug kasta baahidiisa marka individual assessment marka cunug kasta marka baahidiisa ogaano meeshaas ayaa kasoo qaadaynaa baahidiisa wuxuu u baahan yahay individual toolna oo sameynaa oo qiyaas u ah saddexdii ardayba hal macalin ayaa la shaqeynayaa siduu uu soo caawin lahaa meeshuu joogo waxbarashadiisa akhriskiisa uu joogo ilaa iyo galaaskiisa sibuu kusoo gaari lahaa markaan ka qaadna ardayga ataxaanka aan ogaana meeshuu joogo waxaan sii sameynaynaa siduu ilaa galaaska kula soo qabsan lahaa ayaan la dadaali lahaa meesha lafkiis gelinaa magaalada sidaa u dhahday programme kalaa jiraan oo homework laga caabiyo laakiin waxaa ogaatiin waalid kasta homeworka muhiimadda ma aha muhiimadda waxaa cuniga homeworku sameynaya inuu fahmo dadka kale waxay sameeyaan ardaygii homework ay ka caawiyaan ka dambana galaaska uu baas gareeya sidaa ogtihiin arday badan oo high school kasoo kala duway markay jaamacadaha aadaan imtixaanka accuracy test ay qaataan reading iyo writing oo iyo la laalageeya marka anaga waxaan ka dadaalaynaa homework bes maaho sidii cunuga wuxuu aqriyo readingkiisa uu galaaskiisa u fahmo heer hadhow isku filnaansho uu gaaro homeworkiisa u sameeyo marka ardaygan waxaan usii diyaarinaynaa jaamacadda markuu aado levelka jaamacadda accuracy test uu qaato sidii levelkiisa uu cadaankii sida ajnabiga galaasooda caadi u qaadanayeen ay u qaato insha allah marka muhiimadana homework maho muhiimadda waxaa waa akhriska qoraalka xisaabta inay ardayda ficiisa oo isku level ay joogaan aad iyo aad u mahadsan tahay waa loo baahan yahay barnaamijkaas oo kale magaaladeena in maxaa la yidhahdaa uu ka furno ama la keeno waxaan u gudbayaa maxaa la yidhahdaa cabdi ibraahim ma jiraan programme aad u samayseen haddaad tihiin hay-adda cairo magaalada maxaa la yidhahdaa sinclaud oo aad dadka ku baraarujinaysaa fatima aad baa u mahadsan tahay hay'adda cairo minnesota magaalada sinclaud shaqo badan baan ka qabanay shaqadii koobaad aan qabanay waxay ahayd inaan waalidiinta abaabulno inaan sameyno study oo aan ku ogaanayno baahida waxbarasho ee magaalada ka jirta waxaan la kulanay guddi dhalinyaro oo aqoon-yahaniin ah waxaan ka wada hadalnay dhibaatada magaalada ka jirta kadibna waxaan ku dhaqaaqnay tallaabadii koobaad oo aan qabanaynay oo ahayd inaan soo aruurino macluumaad annagoo soo wareysanay waalidiin weydiinayna xiriirka ka dhexeeya waalidiinta iyo iskuullada saabeygii markaan bognay waxaa kaloon sameynay inaan shirweyne qabanay shirweynahaas oo ilaa waalidiin ka badan 200 oo waalid ay imaadeen aan marti qaadnay mas-uuliyiin ka socda waxbarashada magaalada qaar ka socda heerka stateka minnesota maayarka magaalada adig waxgaradka magaalada iyo dad badan oo Soomaali iyo dad badan oo ajaanib ah iskugu yeernay kadibna aan sameynay presentation ama hadal soo jeedin wanaagsan oo ka hadlaysa heerka carruurta waxbarashada magaalada ay joogaan taasoo aan ku ogaanay baahida magaalada ka jirta kadib shirkii markaan qabanay waxaan ku dhaqaaqnay inaan haddana sameyno guddi waalidiin guddigaas iskuul walba aan kasoo dooranay 3 waalid oo annaga aan guddi ka dhignay kadibna aan la shaqeynaynay annagoo barayna mas-uuliyadda waalidiinta siday ula shaqeyn lahaayeen xafiisyada waxbarashada balse shirarkii waan joojin hadda maalmahan maxaa yeelay waxaa saameyn weyn nagu yeeshay COVID-19 waxaa kaloo raba inaan ku daro inaan wada shaqeynka la leenahay 742 iskuullada oo xafiisyada magaalada waxbarashada district 742 waxaan leenahay wada shaqeyn waxaan ka wada shaqeyn rabnay tusaale ahaan inaan barnaamij ka fulino iskuulka North Junior iyo Apollo cabdi aad iyo aad u mahadsan tahay waxaan ka mid ahaa dhalinyartii isku tagtis bahaysatay ee barnaamijkaas soo qaban qaabisay Soomaalidii Sinclaud joogtay albaabadooda inta garaacmay aan aad iyo aad u mahadsantihiin waalidiintii maxaa la yidhahdaa surveygaas noo suurtageliyay inaan soo aruurino waxbarashada carruurteena heerka uu marayo aad ayuuna barnaamijka u wanaagsanaa waayo maxaa la yidhahdaa district 742 maxaa la yidhahdaa waxay ogaatay dad wax bartay inay magaalada joogaan oo ilmahooda maxaa la yidhahdaa waxbarashadooda iyo levelka ay yihiin maxaa la yidhahdaa aad doonaya inay u ogaadaan lana socdo rabana inay la socdaan oo maxaa la yidhahdaa oo volunteer ah una baahnayn in maxaa la yidhahdaa lagu beegareeyo waxaan u gudbayaa maxamed aadan walaal maxaad jeclaan lahayd final thoughts inaad la wadaagto dadkeenan daawanaya caawa فاضل آد يا دوم ما سنت عاو عزمت أنت أسوأ عزمتي برنامج كان ومد الرئيس كلنا حوجيسينا إسكاشة كان A+ إيو قايرو كوضع داي عاو وواحد صعد سيس عندنا مدة والدين تنو حرمنا إن أيجن نغش قيان أنا أرد مش وجوه أكسو قادنا واحد برشيس حق والد كانوا حرمنا مركو إنه مسؤولي إساسارو مركو جوري جوجو
arday kasta ha ka fiiriyo waxbarashadiisa meeshay marayso because of waxaan aragnay arday badan oo waxbarashadooda ka hooseyso marka maalin kasta waxaan rabnaa waalidiinta inay fiiriyaan skywardka cunugiisa uu jagareeyo homeworkiisa iyo meeshuu maraa macallimiintana uu la shaqeeyo aad iyo aad umahadsan tahay maxali maxamed aadan ugu dambays final thought maxaad jeclaan lahayd inaad ummadda soomaaliyeed cabdi ibraahimna aad maxali la qaybsato fatima aad baan ku salaamayaa aad baan kugu mahadcelinayaa waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa walaalkay maxamed aadan oo from A+ Academy ah waxaan ku faraxsanahay wada shaqaynta dhex mari doonta anaga Cairo Minnesota haddii aan nahay A+ Academy waxaan kala shaqayn doonaa sidii ardayda ahayaan heerka ay joogaan ay uga horumar lahaayeen waxaana ka caawin doonaa sidii resources ama adeegyada qaar oo hadda aysan heli karin inaan kala shaqeyno sidii ay ku heli lahaayeen haddii ay noqon lahayd volunteers oo goobtooda yimaada ama ardayda kala shaqeeya iyagoo isticmaalaya virtual link zoom camal kasoo gala ciyaar kala shaqeeya waxaa kaloo rajaynaynaa in anaga Cairo Minnesota aan qayb libaxda ka qaadano sidii Soomaalida degan magaalada advocacy loogu noqon lahaa oo aan wixii xaq oo ka maqan iyo wixii dhib oo lagu hayo aan mar walba u joogno inaan ka hadalno waxaan ku faraxsanahay inaan A+ Academy ay on board noqdaan oo aan ka wada shaqeyno sidii caruurteena maalin wanaagsan berri aan u noqon lahayd better tomorrow cabdi ibraahim aad ayaad u mahadsan tahay daawadayaal idinkana aad ayaad u mahadsan tihiin sida wanaagsan ee nagala soo qayb gasheen barnaamijkan caawa ay noo daadihaynayeen cabdi ibraahim oo ka socda hay-adda Cairo iyo maxamed aadan oo ka socday A+ Academy iyo sida wanaagsan ay maxaa la yiraahdaa uga hadleen waxay u qaban doonaan ummadeena Soomaaliyeed especially caruurteena K-12 marka waxaan rajaynaynaa in maxaa la yiraahdaa wixii su'aalaad qabtaan aad barnaamijka la soo xiriirtaan. Assalaamu calaykum.